بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال كسر هذا channel كيغا أستاذ حبيب عبد الرحمن. فضلا هدياتكم عصبتها هاي سبسكرايب تسارو قنبلة الكنفورو سي أي برامجتو هدبا يكوسو قاران. إن شاء الله تعالى وحين كهضلينا موضوعات يا مهمة. إلهي إذا كيسي قد بيا سي شير قرية سببتو وحاad sabab u noqon kartaa dad fara badan in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala sababtaada ku daweeyo ama uu ku caafiyo. waxaynu ka hadlaynaa sittatu ashkhaasin laa yusaabuuna bisixri. lix qof oo uusan sixirku asiibin ama sixirku uusan ku dhicin ama uusan qaban. lixdaa qof ku dadaal in aad ka mid noqotid. waa very important, aad bay muhiim u tahay. waa laga yaabaa inaad hadda laftigeeda ka mid tahay oo aadan is ogeyn, leanno in badan waxaynu ka soo sheekeynay dadka qaababka sixirka ay suxaradu u dhibaateeyaan ama mashaakil ay ugu sameeyaan. laakiin maanta waxa weeye waa lix qof oo bataatanba sixirku uusan asiibin. ilaahay kow, qofka koobaad oo uusan sixirku asiibin ama uusan qaban waxa weeyaan muxaafadatu cala asalawaat. huwa الشخص الذي يحافظ على الصلوات ويلتزم على الوضوء. qofka salaadaha ilaaliya, waqtigoodana ku dhowra, sidoo kalena weysadiisu mar kasta ay u dhowran tahay. liajli dalika in badan shayaadiinta iyo suxaradu waxa ay tilmaamaan in qofku marka uu weysadiisu mar kasta ay u dhowran tahay ama marka qofku uu salaadihiisa waqtiga ilaaliyo in inta badan ay ku adag tahay inay sixraan. had iyo jeer marka aad cilaajinaysid dadka la dhiban sixirada, sidaasay kuu sheegayaan. diinteennuna way inoo tilmaamtay qofka salaadihiisa ilaaliya, khaasatan salaada subax iyo salaada casar, in qofkaasi waxa loo yaqaano, iyo salaada cishada, waa saddexdaas waqti salaadaha ugu muhiimsan weeye, waqtiyada dadka ku adag, in saddexdaasi qofka aysan dhibaato asiibeynin. qofkaasi waa sixirku inta badan ilaahay idamkii ma qabto. waxaa laga hadlayaa waa inta aysan qofka sixirku asiibin baa laga hadlayaa. laakiin marka sixirku qofka uu ku dhaco oo qofku sixirku marka uu qabto, markaa already dee xanuunkii in aad la tacaashid baad u baahan tahay, oo aad qur-aankii isi saartid, raaqigii aada iscilaajisid baad u baahan tahay. qofka labaad oo uusan sixirku oo uusan qaban waxa weeyaan huwa shakhs, waa qofka qalbigiisu abyadun, huwa shakhsun qalbuhu abyadun laa yaxmilu alxaqda walaa yuxibu adiyata annaas. waa qof qalbigiisu uu cad yahay oo sidoo kalena aan ummadda xaqdi iyo xasad iyo dhibaato aan kula dhex jirin. waa qof qalbigiisu saliim yahay. waa ta had iyo jeer la yidhaahdo hebel qalbigiisu waa uu wanaagsan yahay. liajli dalika laa yaxmilu alxaqda, waxa weeyaan xaasid maaha ama xaqdigii ma yaqaano, walaa yuxibu ma jecla sidoo kale adiyata annaasi, inuu dadka dhibana ma jecla. sidoo kalena wannaasu yuxibuunahu, waxa weeyaan dadkuna waa jecel yihiin. qofkaasina inta badan sixirku ma asiibo. liajli dalika waxaa loo baahan yahay in mar kasta qalbigaaga aad ka dhigtid qalbi wanaagsan oo dadkana xumaantooda iyo af iyo adinba uu ka dhowrsado,
sidoo kalena ummaddu ay ku jeclaadaan oo haddii aad qof qalbi wanaagsan noqotid oo ummadda aan caloosha waxba ugu qaban xataa isagoo la xumeynaya ummaddii wanaajinaya qofkaasi sixirku ma asiibo iyaduna waa fadiilo kale oo aad ummadda dheer tahay qofka saddexaad oo uusan sixirku qaban ama uusan asiibin waxa weeyaan وهو الذي يداوم قراءة سورة البقرة وحويا وقفك لازمة وكد ذاله ومركزتا يعني التزامه قراءة سورة البقرة قفك سورة البقرة أخرنتين أخذها بركة أي رسولك عليه الصلاة والسلام تلمامي قراءة ذا يسكو أخرنتين iyo in markasta la laazimo qofkaasi waxa weeyaan sixirka waa uu ka nabadgelaya waa qiraa'atu suuratul baqara markasta inaad wax ka mid ah ka akhridid isku day aad bay very important u tahay afar waxa weeyaan huwa insaanun waa qof shakhsiyatuhu qawiya qof shakhsiyadiisu aad strong u tahay oo aad u awood badan qalbuhu jariyul qalb لا يعرف طريق الخوف وقف قلبك سؤال يا آدو أود بدنيهي سيدو كلنا أن أقوم بسيد الله عبصله قف كاسين السحر كما قبط أما ما أصيبه ودركتين إن بدن قف أن ويسدو دور سنين أو إسكا صلاة ديس إسكا ليدتو أو هدنا وحوي لكن ما بقى قف كاس وعوكا كالسوني بدنيهي كما ننقف مالك استواء قليا ساحرك يا شياطينتنا قفك أن عبسن مصو تداخلان أما قلبي جيسا أيسا إن يرضو عبسيا فلأجل ذلك وحلو بها إلى ولقى عبسا وإسبيشالي على وحيرها كعبسا لأنه وحويا مكري جوذا وحويا يا آد وشلع سوية انت بدنا ذاتك عبسا أي وحيرها زيخو بدنية شن وحويان وقفك الشنات أو سسحرك أسيبين وحويا هو المتوكلون هم المتوكلون على الله ضدك إلهي تلسار صلاح مر والبا إلهي سبحانه وتعالى تلسار شديسة إلهي خير كف الشعب ميش أمر إلى إلهي من تلسار لنا أن عبسا حتى ما في سوق النبات حيثته سوى مال عندنا أكون نبات هذا يقول لي إلهي من تلسار وحوا يمين مرة قفك دو تلسار شدي إلهي سد لما قلبك يقين بالله اليقين بالله سو ما يدنا نركن ضدك قال ويقين آمسا وادو دون يسوقون شقيسان أو حباب قبسان إلهي أمس هذا نسوم حباب وايين تذكروا حل هذا سحركم ما أصيبه مركا يقين تلو بهاي اليقين بالله تذكر الدين تويسكروا ميسين لكن أنت يقين تلو أرزاقي ودحي مهما نباتك كست إلهي أمس هذا نقد القاضي تذكر سحركم ما أصيبه اليقين بالله لح وحويا الإنسان الروحاني وحل يراهده وقفك الله كعبسي سقرصون يحي تدكم مؤغح لكن إلهي سبحانه وتعالى بؤاد وحريه أعماشي سلام أركو صلاته وعلى غير ماشي قلت كذا مويانا صلاته السنة ياشي حتى إن هذا الأغين أظن قلب كلبات سيدو كدتك عاوية دتك وعاونا يعني مؤغح حتى يعني وحل غير qofkaasi inuu qof biilo laakiin qofkaasi inuu san ogeyn inuu soo biilo dad buu ugu sii dhiibaa dadkaana wuxuu dhahay sheegina dadka sida hoose dadka u caawiya oo laakiin haddana aan dadka is ogeysiinaynin oo ama maaragtay aan la ogeynba xataa la dhahay war hebel wax ma tara laga aamisaya inuusan waxba qaban ayaa laga aamisaya laakiin waa ficlan waa qof mucaawino badan dadka caawiya dadka saacideeya laakiin dadku ma ogaa marka qofkaasina waa insaan ruuxaani baa la yiraahdaa oo qofkaasi ilaahay subxaanahu wa ta'aala buu la kaliyoobay marka qofkaasina inta badan sixirku ma asiibo lixda qof hadaad ka mid tahay ilaahay u mahadnaq hadaadan ka mid ahayna hadda ku dadaal oo xooga saar insha Allah ta'ala sii gudbiya sii sheer gareeyo sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك.